kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinada dunida oo idil daawadayaashana qiimaha badan waa maalinimo axada taariikhdu ay ku beegan tahay 25-ka bisha December 2022 aan ku bilownay dalka Turkiga ayaa sanadihii dambeeyay gaarayay guulo waaweyn taasoo dalka Turkigu sanadihii ugu dambeeyay uu noqday mid jalaabta guud ahaan qalab casriya madaxweynaha Turkiga ayaa guulahaas gaarsiiyay sida ay sheegayaan warbaahinta reer galbeedka oo aad uga xun horumarka ballaaran oo dalka Turkigu ku tillaabsanayay sanadba sanadka ka dambeeya gantaal ridada dhexe ay soo saartay shirkad ku taala dalka Turkiga gantaalkaas oo lagu magacaabo Songor ayaa taariikh ka dhigay adduunka gantaalkan ayaa lagu tilmaamay Songor inuu meesha lagu leeshamo uu horsanayo bartilmaameed kastana uu burburi karo taasoo gantaalada Mareykanka sticker ka ridada dhexe hor u haysteen oo ka dheereeyo gantaalkan dalka Turkiga uu farsameeyo gantaalkan ayaa lagu magacaabaa Songor asoo gaari kara masaafo gaaraysa 8 kilomitir halka stickerka Mareykanku oo gaarayo 5 ilaa 4.5 dowladda dalka Turkiga ayaa horumar ballaaran ku tillaabsatay iyadoo tiknoolajiyad casriya la soo banbaxday sanadihii ugu dambeeyay taasoo ay muuqato inay Turkigu ay meelo badan ay uga horumar hayaan dalalkii reer galbeedka Ankara ayaa horay dhibaato ballaaran ugu haysatay soo saarka hubka taasoo wadamada reer galbeedku ay mar waliba ay saari jireen cadaadis ballaaran hubka dalka Turkiga laga iibiyo ayaa meelo kamid ah caalamka dalka reer galbeedka heshiismanka waxaa kamid ah inaan lagula dagaali karin dalalka ay midda kaliya ay isku difaaci karaan taasoo Turkigu uu ka carooday arrintaas gantaalkan ayaa noqday gantaal taariikhda galay dalka Turkiga shirkadda Roketsan ee dalka Turkiga ee farsamaysa hubka noocyadiisa kala duwan ayaa tijaabisay waxaa la sheegay gantaalkan uu yahay gantaal wax ku ool ah oo bartilmaameed kasta oo lagu leeshamo cagta mari kara Ankara ayaa u aragta dalalka reer galbeedka inay gumeysi ay ku haysay tan iyo markii ay bilowday dowladda dalka Turkiga habeynta hubka casriga waxaa la sheegaa inuu guulo iyo taariikh weyn ay ka gaareen farsamaynta dowladda Turkiga ayaa hadda dalal badan oo dunida kamid ah u iibgeysay qalabkeeda casriga taasoo diyaaradaha daroonta iyo hub kale casriyaba Ankara ayaa guulo ka gaartay samaynta iyo farsamada hubka kala duwan madaxa guud ee dowladda dalka Turkiga u qaabilsan hubka iyo gaashaandhigga Ismaaciil Damir ayaa sheegay inuu gantaalkan yahay gantaal wax ku ool ah taasoo hataa kuwii reer galbeedka ay farsameeyeen oo uga horeeyo meelo badan taasoo u muuqata inay guulo waaweyn ay gaartay dalkaas iyadoo sanadkan hadda dhamaanaya 2023 oo dhammaan doono heshiisman waaweyn ay dowladaha reer galbeedka ay dalka Turkiga ay jilbaha dhulka ugu dhifteen taasoo ah heshiiskii Lausanne oo ahay inay dalka Turkiga badaha in meelo kamid ay ka xayiraayeen taasoo markaan dhamaanaysa 2023 taasoo kadib la sheegay inuu